bartani waa suuqa ilaa cadda ee magaalada Hargeysa iyo Gobonimo oo lagu diyaargaroobayo munaasabadda Ciid Fidriga suuqa Gobonimo ee caasimadda Hargeysa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa booqday waa kuwan qaar kamid ah ganacsatada iyo dadka goobtaasi ka iibsanaya adeegyada ciidda loogu talagalay waxaan ugu talagalay alaabooyin cusub oo ay kamid yihiin shaarashii ay kamid yihiin saraawiishii ay kamid yihiin garamaantii ay kamid yihiin macawisii meelo fara badan baa laga wada keenay alaabta وين كلا دوينهين dadkana waxaan u sameynay qiimo macquul oo logical price oo ay ku qancaan waxaan u leenahay dadka soo dhawaada anagu shaqaaleey meesha nahay raali gelinta dadkana soo dhaweyno shay kasta qiimihiisa aan u sheegno oo raali gelino yaanu tagan anagu yaani walaal adeega bixinay aad buu wanaagsan si waraga aad baa dhar badan baa meesha yaala yaani daq fara badan bay ka helayaan insha Allah oo meel wanaagsan waxaan ku suganahay goobta Gobonimo carwada Al Jazeera ee beebiga dharka carruurta iibisa taasi oo nu shaqeynayno bulshada nabadgelyada amniga wax walba taasi oo nu shaqeynayno bulshada iidasa si fiican u iidasa qiimo dhimisna ku sameeynay 30% dadka haweenkan aan leenahay si fiican u soo dhawaada magacaygu leeyahay Mawlid Cumar Yuusuf waan ku dhawahay ciid wanaagsan baan leenahay hawlwada socodka socdaan iyo sida maartay ay dharka iyo diseynada iyo ciidda iyo farxadeeda iyo dadka iyo ciid iyo carruurta soo kala gaarayno waad arkaysaa aan u shaqeynayno idinku soo dhawaadaan bulshada ku nool caasimadda ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku jiray diyaar garow munaasabadda Ciid Fidriga oo ummadda Islaamku ay aad ugu diyaar garowdo waa Mustafa Ilka Caasiye Qadar Xanaan warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa.